meydka markii lagu tukanayo jinaaza lagu tukadaa. jinaasada rag markii laga hadlayo halkaa madaxa abuu imaamku istaagaa, dumar markii laga hadlayana halkaa dhexda abaa la istaagaa. saxiix. jinaasadu waa 4 takbiirood, mar walbana dadka waa la xusuusiyaa. marka takbiirta koobaad sidan baa la dhihi, hadda waa nin mugtana maalan saasaan dhihi allahu akbar, kadibna maxaan akhrinayaa suurat alfaatixa, kadibna allahu akbar, salliga nabiga ibraahimyadan ku sallini, kadibna ka saddexaada waa maxay allahu akbar, kadibna meydkaa loo duceyno, weliba waa lagu dheeraadaa midda ah ayaday gabar tahay iyo hadduu nin yahayna waxaa loo kala duwaaya. dad carabi ku hadlayso allahuma akfir lahu allahuma akfir lahaa. allahu akbar oo mid afraad muslimiinta loo ducayn, kadibna assalaamu calaykum waraxmat ullah. in sha allahu tacaala cilmigan waa cilmi aad muhiim u ah, ha laga faa'iidaysto, dadkan ha la gaadhsiiyo. subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir wa atuub ilayk.